بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجاعي ومحمود عبد الله محمد كان من أرضية دقة جامعة السلام. ما أنت حروا أنا وحير كهالله عذر كله يقانا ديكركة صومالي أما medical terminology كيسوي hypertension ديكر high blood pressure وعذر كرونيكا أما جوكتا أي لدارا دعان قيب مهمة وكمدة أمة الصوماليات ama dhammaan ummadda adduunka oo idil dhiigkarku waa xaalad joogta ama chronic ah taasoo ay sababaan in arooraha ama awoodda dhiigga ama dhiigga uu ku dhex marayo arooraha dhexdiisa ama xididada dhexdiisa si awoodda taasoo keenayso in pressure-ka zaid u ziyaado loogu talagalay cadadii loogu talagalay uu ka badanayo dhiigkarka waxaa loo yaqaanaa dilaaga qarsoon ama dilaaga aamusan the silent killer dhiigkarka badankiisu ma lahan wax calaamade mana lahan wax gaar ah oo loo aaneynayo inuu dhiigkarka keeno dhiigkarka waxaa loo kala qaybiyaa primary secondary primary waxaa loo yaqaanaa essential wax oo primaryga ma ahan mid leh wax causative agent ama wax sababay oo gaar ah oo sabab ma jiraan secondaryga asigana sidoo kaleeto loo aaneynaya in cudurro ku dhacaan dhiigkarka ama hormonal imbalance ama cudurro ku dhaco thyroid gland oo kaleeto dhiigkarka wuxuu u badan yahay ragga marka loo eego dumarka wuxuuna leeyahay caqabado zaid u tiro badan dhiigkarka waxaa kaleeto lagu arkaa dumarka da'doodu markay dhalmada joojiyaan ama post menopause loo yaqaano wuxuu leeyahay calaamado oo gaar ah oo yaryar oo noticeable markuu cudurku uu yahay severe ama stage ugu sareyso wuxuu leeyahay madax xanuun zaid ah in aragii uu qalqalgal ama blurred vision wax loo yaqaano wuxuu kaloo leeyahay wareer waxyaalahaas uu leeyahay dhiigkarka wuxuu badankiisa maadaama uu yahay loo yaqaano silent killer badanaa wuxuu keenaa caqabado ah in dhaawac u gaarsiiyo keliyihii xubno muhiim oo jirka ka mid ah keliyaha iyo beerkan ay ugu horeeyaan dhiigkarka daawo uu leeyahay laakiin waa cudur lala noolaan karo daawadiisuna ay tahay in lagu xakameeyo ee ma ahan wax inta la daaweeyo laga bogsoona laga reesanayo dhiigkarku waa lala noolaan karaa muddo qofka intuu nool yahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo dhiigkarka laga saxo waxaa ka mid ah qofka inuu qaabku u noolaayo wax ka bedelo nolol maalmeedkiisu wax ka bedelo cuntada cunaya wax ka bedelo waxyaalahaas cuntada cunaya waxaa ka mid ah marka cuntada soo hadal qaadeyno cuntada cusbada ku badan tahay qofka waxaa loogu talagalay inuu cuno cunto oo balanced diet dhaqanka Soomaaligana ma ku jirto cunto balanced aan isku dheelitiran inuu qofku cuno dhiigkarka waxyaalaha dadka ugu badanayo Soomaalida waxaa kale oo ka mid ah waxyaalaha keena stresska zaidka sedentary life-ka dadka nolosha fadhiga ah leh ama ku shaqeeya nolol fadhi ah oo joogta dadka miisaankooda uu ka badan yahay normal range-ga loogu talagalay cadadii waxay khatar ugu jiraan dhammaan dadkaas oo idil soo tilmaanay inay ku dhaco cudurka dhiigkarku wuxuu finally ama ugu dambeyntii gaarsiiyaa qofka inuu ku dhaco cudur xaalad aan laga soo kabsan karin ama ka soo kabsasho lahayn oo ay ka mid tahay stroke ama inuu dhaawac gaarsiiyo wadnaha oo aan dhaawac ka soo kabsasho lahayn gaaro ama keliyihii inuu burburiyo xubnooyin yaryar oo ku jiro kelyaha oo loo yaqaan nephrons taasoo keeni karta qofka inuu dhammaan shaqadii kelyaha uu gabo dhiigkarku waxaa loo qaataa daawooyin gaar ah calaamadii aan soo sheegnay markuu qofka isku arka ama qofka waxaa roon in mar walba iska jeegareeyo calaamadii aan soo sheegnay ama waxyaalo la dhigma ama la halmaalo qofka markuu isku arko ama qofka markii da'diisu ay kasoo weynaato 50 sano ilaa 60 sano markay gaarto oo ragga ay badankoodu yihiin ama hooyada markay caadada dhalmada joojiso kala ama post menopause waxaa haboon qofka inuu dhakhtar tago iskana soo fiiriyo iskana jeegareeyo mar walba caafimaadkiisana la socdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.